fatahaadda webiga Shabeelle uu sameeyay ayaa go'doomiyay deegaano ay ka mid yihiin Buurfuule, Xudur Ciise, Kulmisweyne iyo deegaano kale oo dhowr ah oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe maadaama biyaha ay jareen dhammaan wadooyinka gala deegaanadaasi. sidoo kale fatahaadda webiga ayaa saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku nool deegaanadaasi kadib markii biyaha ay galaafteen dhammaan dalagyadii ku yiilay beeraha isugu jiray kuwa hadda la beeray iyo kuwa joogay xilligii soo gurashada. waxa kaliya ee deegaanada biyaha ay go'doomiyeen lagu gaari karo ayaa ah dooni si macmal ay u sameeyeen dadka deegaanada maadaama biyaha ay khatar gelin karaan nolosha dadka. qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Buurfuule ayaa sheegay in ay saameyn xooggan ay ku yeelatay noloshooda fatahaadda uu sameeyay webiga Shabeelle. waxaan ku hadlaa oo tuulada Xudur Ciise dalageedii maanta kii hadda la bilaabay xaquuqa lagu bilaabay as go'ay kii kale hadda la awoori rabayna ay jaf yahay oo gurihiina aan ka fuulno geedada korkooda aan saaragnahay oo aba kastaba oo ilmaha meel doon u raadiyoyno oo ilaa kaagna oo waxna laga qabtooyna aan jirin oo gobolka Jowhar oo lagu soo darin xisaabaha lagu soo darin waxaan naga dhacay Shabeellaha Dhexe oo lagu soo darin hadana Shabeellaha Dhexe lagu soo darin anigoo ku hadlaayo magacii oo degmada oo Mahaday oo ku hadlaayo oo xisaabtana lagu soo darin madaxweynaha Soomaaliyeed oo xisaabtan lagu soo darin oo jirin as nagu cadeeyna kaas oo nu soo jeedaan cadow la yiraahdo biyo iyo qaneeco oo baladku uu dhamaanay oo gobolka Shabeellaha Dhexe oo madaxweynaha warba naga haynin oo inaan xisaabanahay macnaha Soomaali in dhax deganay dhanba naga bixi oo degmada Mahaday gudoomiyaha degmada Mahaday oo birigana soo doortay noo yimid doonno soo raacay hadda waxaan madaxweynaha Xuseen in hilmaanyay in wadanka ka jirin bataasa su'aalkeeda aba cariirnu aanu haybo annagana geedada ayaan fulnay gaajo iyo dhirmaayo ayaan aska kulantay ilmahayna meel oo geyn geedada oo baladka ku yaala fuulan kale gudoomiyaha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Afrax ayaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka ugu baaqay in ay kaalmo bani aadamnimo gaarsiiyaan dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda webiga. gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo fatahaad ka sameeyay degmooyinka webigu maro haddii aan ka soo qaado Beledweyne, Buulaburde, Jalalaqsi, Mahaday, Jowhar iyo Balcad saameyn xoog leh ku yeeshay. haddii aan si gooni ah uga hadlo degmadan waxaa hoos timaada 47 tuulo oo degmada Mahaday hoos timaada 15 kamida webiga ayay dhinacyada ay hoosta uga jiraan waa jiinka webiga la yiraahdo kuwa kale intana xoogaa waa ka durugsan yihiin dhamaantood waxay ku nool yihiin webigan Shabeelle dalagoodii hadda midkii soo go'ayeen haddii aan ka si gooni uga hadlo tuuladan mid soo go'ana waa ka go'ay mid hadduu Ilaahay ku diidin hadda la beeray oo bishan Oktoobar la kuusadane waxa waaye daadka amra intaas oo dhan baahiya soo food saarayso xoog leh oo maartaa dhib badan leh cagaaran ku noolnahay waxay u baahan yihiin in la nafahadeer raashin la soo gaaro daawo la soo gaaro teendooyin la soo gaaro waxa kale u baahan ma dhaw gargaarkay u baahdeen oo aadin ma dhaw beerahaas waxay ku fashaan ma haystaan. bulshada ku nool hareeraha webiga ayaa ka baqdin qaba in uu ku fataha biyaha webiga Shabeelle maadaama uu wado biyo aad u badan. Farxi Axmed Nuuni, Sahan TV, magaalada Jowhar.